Nicki Minaj oo kamid ah fanaaniinta dumarka ee ugu caansan adduunka kuna caan baxday banaynta qaybo badan oo jidhkeeda kamid ah iyo qaadista heesaha dareenka himada dhaliya ayaa lagu casuumay inay ka qayb gasho bandhig ka dhacaya magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Sucuudiga 18 bishani. Bandhigan oo ay sidoo kale ka soo qayb galayaan dad la mid ah fanaanadan ayaa tusaalihii ugu dambeeyay ee muujinaya ilaa heerka ay isfurfurayso boqortooyadan lagu yaqiinay asturaadda iyo ilaalinta dhaqanka diinta Islaamka. Magaca Nicki Minaj ayaa hadal hayntiisa qabsaday baraha bulshada iyadoo ay dad badani ku mahadsanayeen waxa dhici doona, balse kuwa qaarkood ayaa ku tilmaamay arrin aad u xun oo ka soo horjeeda dhaqanka diinta Islaamka. Fanaanadan ayaa sidoo kale kamid ah dadka dhiirigeliya galmada isku jinsiga ah iyada oo dhawaan ka heestay xus ay samaysanayeen dadka isku jinsiga ah. Arrimahan madadaalada ah ayaa waxay qayb ka yihiin isbedelada furfurnaanta lagu sheegay ee uu ka yimid dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Madaxa golaha murtida iyo madadaalada ee Sacuudiga Turki al-Sheikh ayaa yidhi alle idamkiisa arrimahan madadaalada ah waxaa kamid ahaan doona carwooyinka indhasarcaadka, darajooyinka mala awaalka, qamaarka, si aan ragga iyo dumarka ugu tababarno inay soo bandhigaan hibadooda. Aboubakar Farxaan Cabdi Abka wararka Raya TV.